بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسياني ودرسي كوباد أو كمدة دروس أنا وهلا إنه هدي إلهي يراهدو أحكامتا كسابسا صونك بشهر رمضان. سيدان دمان وذا أكسورنا هي مالمها يهبين ندى بشهر رمضان ومالمه يهبين آدي قالي سندكي تقانا ma soo noqdo in badan oo aan garanayno oo naga mid ahaa oo waxa jira haleelay ramadaankii la soo dhaafay kan soo socdana aan haleelin. ilaahay baan waxa weydiisanaynaa inuu nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo, amalka wanaagsanna uu noogu kaalmeeyo, nagana aqbalo. darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay al-isticdaad li siyaam ramadaan, u diyaar garowga loo diyaar garoobo bisha ramadaan soonkeeda. siyaabo kala duwan ayay dadku ugu diyaar garoobaan ramadaanka. dad badan waxay diyaarsadaan cuntooyin, cabitaan, macmacaan. qaar kale waxay diyaarsadaan waxyaabihii ay ku soo jeedi lahaayeen sida wax la daawado, filimo, musalsalaad, turub iyo waxyaabo kale lagu mashquulo habeenkii, oo habeenkii lagu sugto sida ay yiraahdaan suxuurta lagu sugto ama habeenkii la isku dhaafiyo. dadka maqaayadaha leh waxay u diyaar garoobaan wixii ay bishaas cunto ah gadi lahaayeen. kuwa telefishinada leh waxay diyaarinayaan filimadii dadka ay daawan lahaayeen ama musalsalaad ay ku magacaabaan al-musalsalaat ar-ramadaaniyah, yani riwaayadihii bisha ramadaan la daawan lahaa. ganacsatadu sidoo kale waxay mashquul ku yihiin waqtiyadaas ramadaanka inay ka faa'iideystaan dharkii ciida, wixii lagu ciyaari lahaa, waxyaabo badan. waxaan shaki ku jirin marka intaas oo dhan oo la soo maray inaysan ahayn diyaar garowgii saxda ahaa oo bisha ramadaan loogu diyaar garoobayay, inaysan ka mid ahayn waxaas aan soo sheegnay. sideen marka bisha ramadaan ugu diyaar garoobi karnaa diyaar garow sax ah? marka koobaad waxaan bisha ramadaan ugu diyaar garoobaynaa toobad dhab ah oo aan ka toobad keenayno dunuubtii naga dhacday. sababtoo ah dunuubtu iyo macaasidu waxay kala teedaan qofka iyo khayrka, oo qofka waxay dambigu ka hor istaagaa in uu sameeyo acmaasha wanaagsan ayuu ka hor istaagaa, sabab ugu noqdaa. توبتنا وواجب وقت كستا. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكيري وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، إلهي أولابت أيولي إلهي جميعا رمان أيها المؤمنون مؤمنين لعلكم تفلحون سيادوا الليبانتا. نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. دادو إلهي أولابت aniga oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan ilaahay u laabtaa u toobad keenaa u istighfaartaa maalintii 100 jeer, waa asagoo loo dhaafay dambigiisii kii horeeyay kii dambaba. marka waxaan la ka rabaa ramadaanka cusub inuusan noo soo gelin annagoon ka toobad keenin dunuubtii sanadkii la soo dhaafay, si aan ramadaankii u soono anagoo nadiifa oo taahira oo dunuubtii taahirka ah. arrinka labaad oo aan ugu diyaar garoobayno bisha ramadaan waxa weeye inaan la nimaadno niyad saadiqa, niyad dhab ah iyo go'aan dhab ah in haddii ilaahay ramadaan na gaarsiiyo aan ku dadaali doono taacaadka iyo acmaasha wanaagsan. sababtoo insaanku haddii uu niyeysto khayrka uu niyeysto, xataa haddii uu samayn waayo oo u suurageli weydo ficilkaas inuu sameeyo ay suurageli weydo khayrkaas, wanaag ayaa loo qorhaya, xasana ayaa loo qorhaya niyadaas darteed. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wain hamma bixasanatin falam yacmalha kutiba lahu xasana kaamila. qofkii wanaag inuu sameeyo hamiya laakiin aan sameeyno u suurageli weydi, waxa loo qorhayaa xasana kaamila loo qorhaya. sanadkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu jihaadka u aaday Tabuk meesha la yiraahdo oo asxaabta badankooda ay raaceen wax yar ma ogiye, ayuu wuxuu yiri inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-'udhru. wuxuu yiri madiina waxa ku sugan biyo rag ma aanan socon biiro socod, waadina ma aanan goyn ilaa way idin la jireen, oo macnaha xagga ajarka niyada idin kala jiraan. marka ajarkiina iyo inay idin la qaybsanayaan. habasahumul udhur baa xabisay, waa dad cudurdaar lahaa, haritaankooda cudurdaar dadkiisu ahaa. maalmuhuna sidaba waa 3 maalin. waa maalin tagtay, maalinna waa maalinta aan joogno markaas, maalinna waa maalin soo socota. 3daba waan ka faa'iideysan karnaa. maalinta tagtay waxaan uga faa'iidi karnaa wixii dambiya oo aan dhexdeeda ku sameynay in aan ka toobad keenno, sidaas ayaan uga faa'iidi karnaa.
maalmihiina soo dhaafo dhan wixii dunuuba aan sameeyay haddaan hadda ka toobad keenno ajar baan leenahay amal wanaagsan baan la nimi maalinta aan ku sugannahayna waxaana laga rabaa inaan ku dadaalno طاعاتكي أن كده دالنا فرصة كفائدة سنو ما أنت صوص عتسيدين وفائدة كرنا وحن وفائدة كرنا إن النية صادقة هي جوان أن لن نمانو هدي أن ما أنت جارنو وناج ما أنت إن وناج كتير السمين دونو بشهر رمضان وصوص عت هدي إلهي جارسي إن السومي دونتي حجك هدي إلهي جارسي إن سنة كان حجين دونو إن ماركتا هدي إلهي وحسيو أن مسجد رسي دونو خير كهدي للنية يستو haddii qofku markaas ay u suura gali weydo ajar ba Ilaahay ka siinaya arrinka saddexaad oo aan ugu diyaar garoobayno bisha Ramadaan waxa weeye ducada waxa laga wariyay salafka qaarkood in ay Ilaahay bariyi jireen 6 bilood Ilaahay inuu Ramadaan gaarsiiyo Ramadaan kadibna 5 bilood ay Ilaahay bariyi jireen inuu ka aqbalo Ramadaankii soo dhaafay marka maxaan ku ducaysanaynaa Ilaahay inuu bisha Ramadaan gaarsiiyo caafimaad nagu gaarsiiyo waxaan kaloo ku ducaysanaynaa Ilaahay hadii aan gaarno inuu noogu kaalmeeyo taacadii waxaan kaloo ku ducaysanaynaa inuu Ilaahay amalka wanaagsan naga aqbalo laano muhiimadu ma ahan qofku inuu bishii gaaro oo kaliya bal waxa weeye qofka Ilaahay inuu waafajiyo taacadii uu waafajiyo waxa badan dad bishii Ilaahay gaarsiiyay laakiin aan la waafajin khayrkii aan la waafajin bal waxa laga yaabaa inuu ba la yimaado kabaa'ir iyo dunuub iyo muharramaat bishii Ramadaan dhexdeed inuu ku sameeyo dhici karta marka amalka wanaagsan wuxuu u baahan yahay توفيق ذا إلهي بأباهية يكالمهيسا ولذلك أيها النبي عليه الصلاة والسلام دعادي وبري صحابي قال يا معاذ بن جبل دعاء وحي أهيد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله يقول كالمه ذكري قاقا يا شكري قاقا يا عبادة ذا وناكسن يقول كالمه وحكى لو كم ذا وحيابها أن قد يرقروبين وقم مهمسا وحكم ذا إن قضينه صومك واجبك قفك لولي هي صوم قضاءه واجبة لقوليه إنه قضيه عائشة وحيت رضي الله عنها وحا لا يقولها انجريت الصوم أو رمضان بشهر رمضان مركاسان أودي جرين إن قضيه إلا في شعبان بشهر شعبان إلى أن كسو قارم مركا وحا لقربا قفك مسلم كان إن أوسن قضيه أوسن ديب أوليجين إلى رمضان كسو قاله رمضان كلا كسو قاله وإنه إنت رمضان كلا كسو قرين وقضيه صومك إسك قضيه على قربا arrinka shanaad oo aan ugu diyaar garoobayno bisha Ramadaan waxa kamid ah inaan baranno ahkaamtii soomka ahkaamtiisa inaan baranno si aan ugu soonno annagoo cilmi ku sugan maxaa soomka ku ansaxa maxaa waajiba maxaa sharti ah maxaa soomka buriya maxaa nuqsaamiya ajarkiisa maxaa nuqsaami inaan baranno si aan wixii nala ka reebana iskaga ilaalino wixii nala ka rabana aan ula nimaadno arrinka lixaad oo aan ugu diyaar garoobayno waxa weeye qofku wixii shaqo ah oo bisha Ramadaan ka mashquulinaya cibaadada inuu iska dhameeyo intaan Ramadaan la gaarin haday jiraan arrimo laga yaabo bishaas Ramadaan inay qofka mashquuliyaan hadii uu awoodi karo marka inuu arrimahaas iska dhameeyo intaan bisha Ramadaan la gaarin oo markaas uu tafarruqo oo uu faaruq noqdo bishii Ramadaan iyo cibaadadeedii iyo soomkeedii inuu iska dhameeyo haddaba meel iska saaro sidoo kale arrinka toddobaad waxa weeye qofku inuu soomo shay kamida bisha Shacbaan وديار قروبي كمتها النبي عليه الصلاة والسلام بش الشعبان وسومي جري مركي لو يدينا وحيري ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان يعني بشان شعبان وبال دتكو أي موجيهين وأقول حيا بشي رجب وكمد أهيد بليه أشهر الحرمك إيا بشهر رمضان ويظن بالخير بدنا مركا وانا بالوحيري النبي عليه الصلاة والسلام وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وبالأعماش إلهي الله كوريالو فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وحن شعله بعمل كيغا إن الله حقيس الله كوريالو أنا صوما مركا حكمة مركا بشان شعبان لو سومه وحويه أولا وبشاس عمل كالله كوريالو إلهي الله كوريالو مركا قفك أسوى صوما عمل كيسي إلا كوريالو مدى لبعض العلماء وحي لادين صونك بشا شعبان وحو لمدي هاي سنة صلاة فرضك كهر رئيسة سنة القبلية أيو لمدي هاي أيو بوسكيدي وشوغا سيدو كالو وحا كسوغان نفتي إن لا دياريو صومك لو دياريو سببتو بشهر شعبان مركي صومكي سي براتو ديب كو نقون ميسو بشي رمضان إنو صومو لكن أسوغون بشي شعبان وحبا كسومين هدو هوري كقالو بشي رمضان وحالغا يابا إنو مالماها هوري كو ديبتو دا لغا يابا وحيابا أقو ديار قروبي إنو حكمي ذا بشي رمضان إنو قفكو كسي تلقالو إنو أفوريو تتصومن إنو أفوريو نبي عليه الصلاة والسلام وحيري من فطر صائما
قفكي قف صوما أفرية كان له مثل أجره وحوليه أجر كيسوكله غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء أيضا لغا نقصامين كي صومنا أجر كيسنا لغا نقصامين أيها وحال السينة هي كي أفريي أجر كيسوكله السينة مركا مالينكي أدقف أفريسي أدقف صوما أفريسا أجر كيسوكله أياد يالت هداد بشرلن أفريسينا هذا بيل رمضان أضو صومه أو كلاته مركب واحد يعكر تقفكي إنه بشي رمضان لبتشر صومه صدح إنه صومه أفر إنه صومه كبر إنه صومه بمعنى أجركي قف صومه نقول إنه هلو مركب قفكي أودي كرا إنه اسكسي دياريو وحي وضدكو أفرين لها أيها كم إذا ديار جروجة بشهر رمضان لو سي ديار جروجة هي أجر كاس مركب وحاهلها هي قف كستو قف صومن أفرية قف كاس لا أفرينها هي أما هالنقد قف غنية أما قف فقير هالنقد لأن أفرنتو ما أهان من باب الصدقة يعني صدقة أهان ما أهان وحوي من باب الهدية أي سوق جليسة صدقة وح قفك وحل لسيه قفك باهن لسيه وفقيرك هديتنا وقفك وحل كرامين هيو هدو دون قفك غني هالنقد قف وحيسته هالنقد مركا إفطار سائمكم مركا من باب الهدية وي وقفك الأفرين هي قف غني أنا ونقون كرا قف فقير أنا ونقون كرا أجرك لبدي بوالجيه الأيام مركا cuntadaas marka qofka lagu afurinayo ajar kale iyo cibaadaad kale ayaa ka sii dhasha oo ay kamid tahay qofkii muslimka ah oo la isku soo dhaweeyay la isjeclaysiyo ayaa kamid ah isjeclaysiintaas qofka dadka muslimiinta ay isjeclaadaana waxyaabaha sababta u noqda jannada lagu galo marka muslimiintu in isjeclaadaan mu'miniintu isjeclaadaan waxyaabaha jannada lagu galo ayay kamid tahay sababta jannada lagu galo marka cuntadoo dadka la siiyana waxyaabaha la isku jeclaado ayay kamid tahay sidoo kale waxa ku sugan qofkii loogu kaalmeeyo taacadii loogu kaalmeeyo oo yani wixii uu ku soomi lahaa ku afuri lahaa loogu kaalmeeyo in badan oo salafka kamid ah waxa la yiri afurkooda ay ku afuri lahaayeen ay dad kale ku afurin jireen iyagoo sooman Abdullah ibn Umar ma afuri jirin illa in la afuro maahna dadka agoomada iyo fuqarada ayuu la afuri jiray marka qofku hadduu qofka afurinayo gurigiisu ku afurin karaa guriga kula afuri karaa ama qof buu wakiilan karaa oran karaa niyo anigu ma awoodee iga maaragtaa dadkaas afuri ama masaajidu geyn karaa ama ma garanaysaa maqaayadaha kale qofkii maqaayad buu saari karaa oran karaa maqaayada ka afur oran karaa ama cuntadii ceeriin buu wuxuu u gadi karaa reeraha taagta daran ayuu u iibinayaa cuntooyinka ay u baahan yihiin oo bisha Ramadaan ay afur ka dhigan lahaayeen marka siyaabo badan ayuu qofku ku afurin karaa dadka sooman sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi